kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan xogaha dheeriga waxaanu idinku dul istaagi doonaa sida u dhacday maalintii labaad ee dhageysiga dacwadda badda ee wakiilada Soomaaliya iyo qareennada metelaya Soomaaliya. waxa ay sheegeen Saudi Arabia ayaa markeedii ugu horeysay waxay diyaaradaha dagaalka ee droniska ay ka iibsanaysaa Turkiga oo ay ka dalbatay, iyo Turkiga oo isu diyaarinaya isku dhac Greega, Israa'iil iyo midowga Yurub ee ku saabsan mashruuca East Med. iyo xogo muhiim ah ayaad ku dhageysan doontaan warbixinadeenan. aan ku bilowno warbixinadeenan dhageysiga dacwadda Soomaaliya iyo Kenya ee maxkamadda Hague ayaa la soo gabagabeeyay maalintii labaad oo hadalkooda ay sii wataan qareennada u doodaya Soomaaliya. labada qareen ee maanta hadlay ayaa soo bandhigay mowqifka Soomaaliya ee ku aadan sida ay tahay in loo xadeeyo xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. qareennadii hore ayaa sheegay in Soomaaliya mowqifkeedu tahay in xadeynta lagu saleeyo laynka tooska ah ee ku aastaysan xuduudda badda. qareennada Soomaaliya waxay sheegeen in xadeynta badda noocan oo kale ah loo adeegsaday xukunnadii hore ee maxkamaddu go'aamisay ee ku aadanaa badaha wadamo ay ku muransanaayeen sida Bangladesh iyo Myanmar oo kale. qareennada Soomaaliya waxay sheegeen in xariiqda tooska ah uu si cadaalad ah badda ugu kala qaybiyo Soomaaliya iyo Kenya. waxay ka hor yimaadeen in xuduuddu ay ku salaysnaato loolka oo ah mowqifka Kenya. qareennada ayaa sheegay in loolka Kenya uu ku salaysan yahay doodeeda aanay jirin meel laga isticmaalo isla markaana uu xaq darro ku yahay Soomaaliya. qareennadu waxay ku eedeeyeen Kenya in dacwadoodu ay ku salaysan tahay qaynuuno aan ahayn kuwa caalamiga ah. qareennada Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay tallaabooyinka ay Kenya qaaday marka ay noqoto dhulka la isku haysto. qareennada Soomaaliya u doodaya waxay sheegeen in Kenya ay ku xadgudubtay madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. qareennada waxaa kaloo ay sheegeen in Kenya ay qaratay inay bixisay shati la siiyey ugu yaraan 5 shirkadood oo shidaal baadhaya dhulka ay sheeganayso. waxay qareennadu intaa ku dareen in weliba ceel lagu qodayo dhulka Soomaaliya ay sheeganayso. waxay qareennadu ugu baaqeen Kenya inay joojiso isla markaana waxba kama jiraan ka soo qaado shatiyada ay siisay shirkadaha. waxay kaloo sheegeen qareennadu in Soomaaliya oo doonayso niyad wanaagsan darisnimo aysan doonayn in Kenya magdhow ka siiso xadgudubyada ay samaysay. waxayse qareennadu sheegeen in Soomaaliya doonayso 3 arrimood oo kale ah: in maxkamadda caalamiga ay si cad u xaqiijiso xaqa Soomaaliya ay u leedahay dhulbadeedka, in diiwaangeliso xadgudubyada ay Kenya samaysay, iyo in la joojiyo tallaabooyinka Kenya. xaakimka maxkamadda ayaa ka hor inta aysan dhageysiga soo xidhmin sheegay in Kenya warqad ay u qortay maxkamadda ICJ taas oo laga doodayo, waxayna xaakimku sheegeen in isbeddel u imaan karo jadwalka dhageysiga ee maxkamadda. dhageysiga maxkamadda muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa wali socda, waxaana harsan maalmo kale. xogaha kale ee dunidana, madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wuxuu sheegay in dowladda muddada dheer la tartamaysay Turkiga ee Saudi Arabia ay codsadeen in ay iibsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga. Erdogan ayaa hadalkan ka sheegay markuu ka hadlayay xiriirka dalka Masar iyo Turkiga oo xumaaday tan iyo markii madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi uu xukunka ka qabsaday afkambi military 2013 isla markaasna bilaabay olole ka dhana ikhwaanul muslimiin oo ay taageerto Turkiga. dowlatus military oo wada jira oo u dhaxeeya Saudi Arabia iyo Greega ayaa su'aal taagan, sida ay shaaca ka qaaday jaridda Gazzetta Manifesto oo ah wakaaladda wararka ee Turkiga. Saudi Arabia waxay codsatay diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn ee Turkiga. tanna waa horumarkii ugu dambeeyay sidoo sheegay Turkigu. xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Ankara ayaa xumaaday tan iyo markii uu dhintay 2018 wariyihii mucaaradka ee Sacuudiga Jamal Khashoggi dhismaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul
awoodaha dagaalka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska ee Turkiga ayaa saameyn weyn ku yeeshay howlgalka ka dhanka ah ciidamada Suuriya ee ay taageerayeen ciidamada dalka Turkiga gobolka Idlib bishii February iyo bishii Maarso ee 2020 iyo dhawaan dagaalkii dhawaa ee dhexmaray Azerbaijan iyo Armenia ee Nagorno-Karabakh oo lagu shaabadeeyay diyaaradaha ugu wanaagsanaa dagaalkaasi isagoo ka hadlaya xiriirka ka dhaxeeya Ankara iyo Qaahira madaxweynaha Turkiga ayaa yidhi uma malaynayo in dadka reer Masar ay naga hor imanayaan dadka Masaarida ah diidi maayaan xiriirkeena talaabooyinka dhawaan la qaaday waxay ila muuqdaan inay ka turjumayaan qalad hore u dhacay in la saxo saraakiisha sarsare ee Turkiga oo ka mid yahay madaxweynaha Turkiga iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga dhammaantood waxay muujiyeen rabitaanka Ankara inay hagaajiso xiriirka kala dhaxeeya xukuumadda Sisi si kastaba saraakiisha Masaarida ilaa hadda waxay ku xidheen dhowr shuruud soo celinta xiriir ay la yeeshaan Turkiga oo ay ku jirto ka bixitaanka ciidamada Turkiga ee Liibiya, Suuriya iyo Ciraaq taasna uma diyaar aha Turkigu inay fuliso xogaha kale ee dunidana Turkiga iyo Mareykanka ayaa bilaabay dhoolatus military badda Mediterranean-ka xilli Turkiga iyo xiisadda ka dhex taagan Greece, Qobros, Israa'iil iyo Midowga Yurub ay marayso halkii ugu sareysay ciidamada qalabka sida ee Turkigu waxay dhoolatus military oo wada jira oo ay hogaaminayso Mareykanka ka fuliyeen badda Mediterranean-ka maraakiibta dagaalka ee Turkiga ayaa ka qayb qaatay dhoolatus military oo ay hogaaminayaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka koonfurta magaalada Rohdes diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka leelisada militariga oo ay si wada jira uga qayb qaadanayaan ciidamada qalabka sida ee Turkiga iyo ciidamada badda ee Talyaaniga ee ku sugan badda dhexe layligan ayaa la ballaarin doonaa iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan diyaarado badan iyo maraakiibta badda ee Turkiga 18 bisha Maarso iyadoo dhanka kalena ay sii kordhayaan xiisadda Greece, Turkiga, Israa'iil iyo Midowga Yurub ujeedada dhabta ee Turkigu inay u diyaar garowdo dagaal adag oo ka dhana Greece, Yurub iyo Israa'iil ee bariga Mediterranean-ka Ankara waxay ka biyo diiday in Qobros, Greece iyo Israa'iil isbuucii la soo dhaafay ay saxiixeen heshiis bilow ah oo u dhigma in la dhigo fiilada korontada ugu dheer dunida oo isku xidha dalkani Ankara ayaa Isniintii u dartay warqad diblomaasiyadeed safaaradaha Greece iyo Israa'iil iyo Midowga Yurub taa oo ku saabsan mashruucani inuu taageerayo dhismaha bariga Mediterranean-ka oo Turkigu uu sheegay inuu marayo marinkeeda qaaradda horaantii bishani Israa'iil, Qobros iyo Greece waxay ku heshiiyeen dhismaha xadhigga koronto oo ka gudbaya badda Mediterranean-ka mashruuc lagu qiyaasay 900 milyan oo lagu magac daray isku xidhka Yurub iyo Aasiya Turkiga ayaa u muuqda inuu doonayo inuu adeegsado hanjabaad kulul oo la xidhiidha xadhiggaasi madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sheegay bishii December in Turkigu uu jeclaan lahaa in xidhiidh wanaagsan uu la yeesho Israa'iil laakiin Israa'iil waxay sheegtay inaysan ku laaban doonin wakiiladeeda magaalada Ankara ilaa inta laga soo afjarayo howlgalka garabka military ee Hamas oo ay taageerto Turkigu qorshaha Qobros, Greece iyo Israa'iil marka la dhameystiro isku xidhka korontadani waxa ay bilaabayaan inay diyaariyaan isku xidh kale waqooyiga Qobros, Masar iyo Faransiiska xadhigga biyaha hoostooda maraya ama mashruucani dhoomaha gaaska ayaa laga yaabaa inuu muujiyo isbeddel weyn iyo xiisad gobolka ka dhacda oo Turkigu uu digniin ka muujiyay